annagoo ah beesha sacad oo degaanka dhuusamareeb waxaan wareejinaynaa 2 neef oo geela oon ugu talagalnay martiqaadka dadka iskugu yimid meesha madaxweynayaasha kulli waxoo dhan meesha iskugu yimid yaan gudoomiye ku-xigeenka xoghayaha waxaan ku wareejinaynaa 2 geela annagoo ah beesha reer sacad oo deegaanka dhuusamareeb degan waxaan saaka ku wareejinnay gudoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan geed qorow 2 neef waan ugu talagalnay shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo dhan maanta ay iskugu imaanayso oo arrimaha masiirka Soomaaliya looga tashanayo 2 neef waan ugu talagalnay oo geel ah gudoomiyaha degmada cabdiraxmaan geed qorow iyo gudoomiyaha ku-xigeenka cabdi xaashi xoghayaha dhammaan naga gudooma 2 geel ah oo aan ugu talagalnay martiqaadka annagoo ka mid ah beelaha degan deegaanka dhuusamareebeed anoo beel ku hadlahaya magaceeda beesha sacdanoo ku hadlaya yaan waxaan ku wareejinnay 2 geela oo marti sharaf ah dadka haddii alla kuu roon yahay kulanka maamul goboleedyada ka soo qayb galay ayaan geelaas aan ku wareejinnay gudoomiyaha degmada haddii alla kuu roon gudoomiye ku-xigeenka xooghaynta geelaas sidaasaan ku wareejinnay waa marti sharaf beesha sacad oo meeshaan taagan waxaan ku salaamayna salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam aad baa ugu mahad celinaya maamulkeena degmada sharafka leh magacayga waa cabdirasaaq sheekh xasan oo ah maamulaha baarnimo waxaan ujeeddada halkaa ay tahay in aan degmadeenna sharaf kale ku wareejinno 2 neef oo geela oo aan ugu talagalnay shirka maamul goboleedyada ay isugu yimaadeen degmada dhuusamareeb martiqaadkiisa aan ugu talagalnay ayaan ku wareejinnay annagoo ah beesha sacad waxaan u mahad celinaa dhammaan beelaha degan meeshaan intaan maaha intaan wareejinaynaa waxa aan bixin doonaa oo shirkaas ku bixinaynaa insha Allah kan iyo ka dambeeyaba way soo daba joogeen waxaan bixin doonaa wax badan ayaan bixin doonaa wana qayb qaadanaynaa gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada odayaasha dhaqanka oo beesha sacad oo degan caasimadda aadaa ugu mahadsantihiin odayaasha dhaqanka oo beesha sacad oo degan caasimadda aadaa ugu mahadsantihiin runtii waa arrin farxad leh ayaantaan waxaa noo socotay martiqaad iyo gogol oo caasimadda maamulka degmada iyo marti loo yahay iyo dhammaan guud ahaan ummadda degan galgaduud khaasatan caasimadda iyo aagageeda waa ku mahadsan yihiin waxqabadka ay muujiyeen beelaha dhan oo dadka deegaanka degan sida dhaqanku ahaa in wax la martigeliyo sidaysan u kala harina aad baan ugu mahad celinayaa inta dhimanna waxaan jeclaa insha Allah inay soo dhammaystiri doonaan insha Allah tacaala wixii nagu soo siyaada ayana dib baan iskugu laaban doonaa haddii Ilaahay idmo maamulkana aad baan ugu mahad celinayaa howlaha dardargal iyo gogosha noo taala caasimadda ayaantaan sida ula socotaanba dal iyo dibad waxaa saaran culaysyo martiqaad dadka dibaddana waxaa ugu baaqahayaa inay insha Allah tacaala caasimadda dadka ka soo jeeda ee galmudug inay si fiican ugu dhiiradaan waxyaalaha ka socda iyo sidii gogosha maamulka caasimadda uu martiqaaday mar labaad iyo mar saddexaad waxaan hombaliyeenayaa odayaasha beelaha ka soo kala jeeda ee caasimadda degan iyo qabiilada siday u garteen maamulkooda sharafta leh u garab istaageen ilaa iyo heer madaxweyne ilaa iyo heer maamul goboleedba galmudugna waxaan leeyahay guul bay ku dhamaanaysaa insha Allah waxayna wadada saartay nabadii gogashii way furo u noqotay waxaan leenahay waxa la dhihi jiray Puntland waa hooyadii federaalka haddana insha Allah tacaala aabihi waxaan noqday galmudug insha Allah tacaala waxaan u maleynayaa shirka 1 iyo 2 buu noqon doonaa waan u diyaar garoobi doonaa 2 insha Allah tacaala martidana waxaan ka raali gelinaynaa waxyaalo yar yar haddii iska jiraan in loo cudur daaro insha Allah tacaala si fiican baan u garab istaagsannahay dhaqdhaqaaqooda iyo howlahooda maamulka caasimadda 24 saac ku kontaroolayo guryaha iyo sida loo dajiyay madaxweynayaasha dhammaan martidana waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin walaalayaal ku soo dhawaada caasimadda si fiican gurigiini waaye galmudugna waxay noqon doontaa insha Allah tacaala gobolada dhex waxa weeye waa wadnihii Soomaaliya insha Allah tacaala waa wadnihii baan nahay hadaan nahay maamulka galmudug iyo maamulka caasimadaba insha Allah si fiican aan soo dhaweynayna waxaan uga mahad celinayaa beesha sacad qaybta ka degan magaalada caasimadda deeqdan ballaaran oo isaaka noo keeneen oo runtii ay ugu tala galeen maaragtay martidan muggale oo maaragtay caasimadda maamul goboleedka galmudug maanta ku sugan maalmahana joogtay inay uga qayb qaataan
runtii geelaanu ma ahan geelii ugu horreeyey waxa weeye waa geelii saddexaad oo aan la wareegayno darraad geelaa la bixiyey shalay geel aad u badan baa la bixiyey maantana geel baan hadda haynaa mid kalena waa rajaynaynaa laakiin waxaan rabaa inaan beesha Casacad u sheego ugana mahad celiyo inay yihiin beeshii labaad oo ayagu geel bixinayaan markii laga reebo beesha Cayr beeshii labaad oo magaalada degan oo geel keenaya waxaa noqday Sacad aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin taas runtii anagu maamul ahaan inta qayla qaadanay ma aanan dhihin mahanala marti qaada dadka oo waxa weeye galmudug waa ku tala gashay inay maaragtay marti geliso maamul goboleedyada iyo dadka ka socda maamul ahaan laakiin dadku farxad ay macnaha u qabaan nabadda dhiirigelin ay nabadda siinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin waxa meesha ka socda ayaa qolo walba maaragtay ay waxay ku deeqaysaa wixii ay maaragtay heli karto keenaysaa marka intii hore wax u dhiibtana waa uga mahad celinaynaa inta dambe oo keenaysana waa sugaynaa waan uga mahad celinaynaa geeliyow kala sugaynaa oo maanta noo soo socdo nolo ballan qaaday birri kuwa kale la helaya hadii ilaahay idmo waa isdaba joogtaa deeqdu dadweynaha caasimadda degan iyo gaarkeeda iyo deegaanada ku dhowdhow oo dhan runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaa odayaasha dhaqanka gaar ahaan waxay iska saareen xil hawshaas inay maaragtay doorka ayaga uga aadan inay ka qaataan waxaan rabaa kale inaan u soo jeediyo madaxda meeshan ku shiraysa oo Soomaaliyeed dadku waxay u heelan yihiin waxa la idinka sugayo nabadda waxaan soo jeedinaynaa anoo dadka codkoodii ku hadlaya caasimadda degan iyo agaarkeeda iyo inta maaragtay runtii nabadda jecel oo reer galmudug ama Soomaaliyeed inaad maanta isu tanasushaan wax la isu ogolaado nibo meeshuu ku dhagan yahay ka soo fuqo shirkan waxaan rabnaa in lagu soo biiriyo madaxda qaranka oo Soomaaliyeed madaxda axsaabta oo maqan Soomaaliya waxay u dhantahay ay ku raali tahay halkan in lagu yeegleelaan rabnaa adinkaan hor u dhac u ah runtii waxa weeye aad iyo aad u soo dhiiraday waa idinkaga mahad celinaynaa inaad galmudug ahaan noo ogolaateen inaan idin qidmayno adinkoo gurigiinii joogtaan haddana dadka idin qiimaynaya anagu inaan noqono maamul goboleed ahaan waa idinkaga mahad celinaynaa laakiin waxaan idinka codsanaynaa madaxda kale oo dhimanna in la keeno adinkuna heshiis taariikhiya inaad gaartaan